daawadayaal ku soo dhawaada dhacdooyinka caalamka qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah talistan oo ruushka uu lahaa oo dambasta laga dhigay iyo dal ku deeqay hubka casriga ah ee loo adeegsaday duqayntaasa madaxweynaha ruushka oo si qarsoodi ah loo dejiyey qorshe la yaab leh oo lagu qaarjinayo agabka la adeegsan karo iyo magacyada ragga muhiimka ee qorshahaasi fulinaya oo si hoose loo dusiyey dal muslim ah oo ku yaboohay adeeg ay ku wada qanceen wadamada ruushka iyo Ukraine laba dal oo cusub oo ku soo biiraya ururka BRICS ee reer galbeedka ee xifaaltamaana mid ka mid ah wadamadaasi wadan islaam ah iyo ku dhawaad 40 ruux oo muhaajiriin ah oo gudaha dalka Mareykanka soo galay oo meedadkooda laga helay qodobadaas ayaan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Bandhiga TV fadlan sii share garee muuqaalkan sidoo kalena qaybta follow-ga ama subscribe-ka noo saar waa bilaash waxaan idin soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo dunida Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ayaa si rasmi ah u gudbisay codsigeeda ku biritaanka kooxda shanta wadan ee dhaqaalahoodu soo koraya ee ka kooban Brazil, Ruushka, Hindiya, China, South Africa. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Tehran ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay ku biirtay ururkaas. Talaabadan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Iran uu toddobaadkii hore khudbad uu ka jeediyay shirka BRICS. inkastoo BRICS aysan ahayn koox gashay heshiis rasmi ah haddana waxa ay leedahay hab howleed hal abuur leh oo dhinacyo badan leh sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Saeed Khatibzadeh. Isniintii ayaa wakaaladda wararka ee Iran waxa ay baahisay in ay ku biirtay Iran ururkaasi BRICS oo ah urur ay xifaaltamaan wadamada reer galbeedka. Tobaneeyo askari Ruush ah ayaa la dilay duqayn ugu horeysay ee abida ee Ukraine ee ku qaado mid ka mid ah xarumaha taliska Putin kuwaas oo loo adeegsaday gantaallada ridada dheer ee dalka Mareykanka lagu farsameeyay sida ay sheegtay Kiev. ugu yaraan 40 ka mid ah ciidamada Moscow ayaa ku dhintay weerarkaas kadib markii ciidamada Ukraine adeegsadeen nidaamka HIMARS ee Mareykanka lagu farsameeyo kuwa oo isqarxiya isla markaana hub casri ah. duqayntan ayaa waxaa lagu qarxiyay saldhig ku dhow magaalada Izium ee gobolka Donbas sida ay sheegtay saraakiil ka tirsan Kiev. muuqaalo ka soo baxay ayaa muujinaya natiijada ka dhalatay weerarka ay ku jiraan dhismayaal la qarxiyay iyo burburka sahayda ciidamada Ruushka. waxaa la qarxiyay baabuur siday sahay lagu rijeeyay astaanta dagaalka ee Z oo Donbas noqday. calaamadan ayaa waxaa isticmaalo ciidamada Ruushka. ciidanka taliska la duqeeyay ayaa waxa ay ka tirsanaayeen ciidanka 20aad ee qalabka sida dalkaasi Ruushka kuwa oo degana galbeedka saldhigga Voronezh oo ku taala dalka Ukraine. Ruushka ayaa qirtay weerarka ay sheegeen in loo adeegsaday HIMARS balse waxa ay ku dooday inay ku dhaceen isbitaal ayna ku dileen 2 qof oo rayid ah balse waa ay baneeyeen walow muuqaal laga soo baahiyay ee tilmaamayaan saldhigga oo gebi ahaanba burburay. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa hadda la wada qorshe si qarsoodi ah loogu qaarjinayo. arrintan ayaa waxaa wada rag asiga aad uga dhow. Vladimir Putin ayaa la sheegay in qaarjin doonaan waxaana lagu dili karaa dube sida ay sheegeen sirdoon oo heleen FBI-da Mareykanka. waxaana la dhici doonaa madaxa iyadoo la adeegsanayo shirqoolo qarsoodi ah oo ay maleegayaan xaydaabkiisa hoose sida ay ku doodayaan madaxda hore oo ka tirsan CIA-da. mid ka mid ah saraakiisha CIA-da ee hore uga tirsanaa oo lagu magacaabo Daniel Hagman oo sargaal sare ka tirsan waxa uu sheegay in saraakiil sarsare oo Ruush ah oo madax ka ah saldhig hoosaadka Moscow ay sheegeen in hogaamiyaha Ruushka saaxiibadiisa ay ku dayi karaan inay xilka ka tuuraan Putin duulaanka fashilma ee Ukraine dartiisa. sargaalkan sirdoonka wuxuu rumaysan yahay in isku day kasta oo lagu afgembiyo ninkan uu ugu xoog badan Ruushka uu noqon doono mid degdeg u dhici kara xilli walba. waxa uu sheegay nimanka sameyn doona arrintaani shirqoolka inay noqon doonaan kuwa qarsoodi ah isla markaana Putin uusan hor ogaan karin iyagoo uusan marka horeba uusan dilina. waxay dhici doontaa in si lama filaan ah oo degdeg ah isna uu dhiman doonaa ayuu sii raaciyay. Huffman wuxuu qiyaasayaa 3 qof oo muhiim ku ah arrintaani shirqoolka ay ka dambeeyaan kuwa oo kala ah wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka Sergey, madaxa golaha ammaanka Nicholas Patrushev iyo agaasimaha nabad sugidda FSB Alexander Barkov
kuwaas oo midkoodba hami uu ka leeyahay inuu hogaamiyo Ruushka. In dubbo la isku qarijiyo ma aha wax ku cusub Ruushka. Dadka waxay xasuusinayaan dilkii kacaanyahankii Sofiyeetkii ee Leon Trotsky kaas oo la dilay amarkii ka soo baxay Joseph Stalin iyadoo madaxa laga geliyay mudaca barafka ee lagu duleeliyay kadibna dubbo lagu garaacay. Waa nageynta dhacdooyinkii wararkii ka dhacay dunida.